wasiirada dowladda federaalka, wasiir ku-xigeenada, xildhibaanada, senatarada, marti sharafta kale, bahda saxaafadda, haweenka iyo dhalinyartaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan dhammaantiin idin mahadnaqo si aad noo soo sharafteen ee xafladan aad noogu samirteen waqtiga noo siiseen. waxaan marka labaad bogaadinayaa oo hambalyeynayaa maamada ee ku guuleysatay gaarigan qaaliga ah. waxaan si khaas ah u sii hambalyeynayaa fikirkeeda qaaliga ah in ay maanta hadiyadii ay heshay u hibaysay wiilkeeda oo ay wax ku barayso. arrintaasi runtii arrin dareen xambaarsan weeye. hambalyo. maanta waxaynu u joognaa xafladan lagu daahfurayo isimka hadiyadanna lagu bixinayo. waxaan marka labaad hambalyeynayaa maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Somtel oo runtii halkanina soo gaarsiiyey oo har iyo habeen u taagan horumarinta shirkadda. aad iyo aad baan idinku mahadnaqay idinkana. shirkadda Dahabshiil Group himiladeeda iyo hadafkeedu waxa weeye in ay mar walba la timaado hal abuur cusub. shirkaddu waxay keentay xadhiggii ugu weynaa ee la yidhaahdo deer oo xambaarsan teknolojiyad cusub oo fiber ah, kaasoo looga faa'iidaysan karo caafimaadka, ganacsiga, waxbarashada iyo dhammaan baahiyaha kale ee bulshadu ay leedahay. waxa weeye waa maalgelin aad u culus. waxaa laga soo jeeday Djibouti, waa ka dheregsantiin halkan inoo yaallaa. maalin dhowna waxaa la helayaa adeegyada kala duwan ee fiberka oo guryaha la gelin doono, xafiisyada la gelin doono, mobaylada lagu isticmaali doono. marka waa teknolojiyadii ugu dambeysay inuu caalamka kula tartamaynay. taana waxaa hirgelisay shirkadda Somtel. waxay kaloo shirkaddu keentay Hyundai Dahabshiil Group oo ah gawaadhi teknolojigoodu sareeyo oo warshada toos looga soo saaray, xamar laga soo dejiyey. maantana aynu guddoonsiin doono maamadii ku guuleysatay. sidoo kale waxaa jira mar walba horumar maamulka Dahabshiil Group ay ku talaabsanayaan si ay dalkan horumarkiisa, shaqo abuurkiisa, xasiloonidiisa iyo dardargelintiisa uga qayb qaataan.